kadib markii madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu booqasho ku yimid magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa deegaamo kamid ah gobolka Bari qabanqaabada iyo soo dhaweynta madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya magaalada Boosaaso oo ah magaalada ganacsiga Puntland ayaa kamid ah magaalooyinka sida aadka ah looga dareemayo soo dhaweynta madaxweynaha waxaana dariiqyada lagu arkayaa gaadiid ay ku rakiban yihiin codbaahiyaal ay ka baxayaan heeso wadani ah sidoo kale wadooyinka ayaa waxaa lagu xardhay calanka Soomaaliya midka u gaarka ah Puntland iyo halku dhigyo muujinaya soo dhaweynta madaxweynaha laamaha ammaanka gobolka Bari ayaa waxa ay ku hawlan yihiin adkeynta sugidda ammaanka maadaama madaxweynuhu uu ku soo wajahan yahay magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso taliyaha qaybta gobolka Bari Korneyl Cabdixakiin Yuusuf Xuseen ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay xafiiskiisa waxa uu ku sheegay in laamaha ammaanku ay ku hawlan yihiin sugidda ammaanka isla markaasna aysan ogolaan doonin gaadiid ay ku rakiban yihiin bacaha loo yaqaan beersoolka hay'adaha amnigu diyaar waxay u yihiin inay shaqeeyaan waxay ka shaqeynayaan waa magaalada waxaanu rabnaa hadii Ilaahay idmo inaanu ka shaqeyno amniga waxaan uga digaynaa baabuurta beersoolka la yiraahdo beersol laga bilaabo maanta beersoolka waa ka mamnuuc magaalada cid kasta title kasta magac kasta oo uu leeyahay mas'uuliyad kasta oo hayo wax kasta oo yahay hadii Ilaahay idmo waxaanu leenahay beersolka hal la joojiyo hal laga tanaasulo beersolka sababtoo waxa weeye waxaanu haynaa xogo ah in beersolkaas la inoogu soo gadbanayo nabadgelyadeena wax lagu yeelayo marka maadaama anagu aanu ka shaqeynayna amnigii xogna aanu ka hayno cid kasta oo beersol wadata shaki baa naga galay waxaanu leenahay marka hadii cidii ay dhib uga timaado maadaama aan uga dignay cidii dhib uga timaado hadhow oo shaki waxyeello ku soo gaadho waxa weeye ayaga isgaarsiiyay dhinaca kale wararka ka imaanaya tuulada Tukaraq oo qiyaastii 70 kiiloomitir u jirta magaalada Garowe ayaa sheegaya in uusan wax dagaal halkaas ka dhicin balse ay isku horfadhiyaan ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo Somaliland oo maalinnimadii shalay uu halkaasi dagaal koobani ku dhex maray saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ii xaqiijiyay inay hakiyeen gaadiidkii isaga gooshi jiray wadada isku xirta Puntland iyo Somaliland Fadma Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso